hadda meesha lagu soo qoray uu kaligood in la raali gelinayay gabadh walba oo wax laga sheegay labada dhinacba horta waan raali gelin baanu siinaynaa walibana nimankaas gabdhahaana walaalaheena ay majeerteen kuwii meesha joogay iyo kuwaan la caayin iyo kuwa walbaba hal gabadh haddii la caayo macnaheedu waxa weeye gabdhihii oo dhan baa la caayay labada dhinacba meeshay dooniba ha noqoto niman yahow arrintan aniga waxaa ila quman hadalka ma sii badinaye arrintan haddaynaan majeerteen iyo ogaadeenow arrintan aynaan go'aan ka soo saarin sidaan bay isu daba ordi maantadan markaynu xallinno in a second waxaad arkaysaa club house-kii oo qasan maalin walba inaadeero ma caane marka gabadh baa la caayay iyo welibana dadka gabdhaha caynaya dad baa u shacabaynaya oo garab ordaya hadhowna laga yaabaa inay iska dhigaan masaakiin ilmaadeerayaalow dadka gabdhaha caynaya labada dhinacba haddaynaan bayaan cad aynaan ka soo saarin cid aan la qaban karin club house-ka ma lehe ninka majeerteen waa nin majeerteena ama nin fiican ha noqdo ama nin xun ha noqdo ceebtana asaga iyo maaragtay tolkii buu usoo jiidayaa ninka ogaadeenna sidoo kale ninkii ogaadeenee maanta wax qasta ama ninkii majeerteenee wax qasta ninka majeerteenna tolkii buu ceebta usoo jiidaya iyo asaga ka ogaadeenna tolkii buu usoo jiidayaa haddaynaan dadkaas marka bayaan ka soo saarin cad oynaan iska qabanin labada dhinacba oo dadkaas hawl cad aan laga soo saarin dee maalin walba every second iyo mar walba every day saasay usoo noqonaysaa continuously saas bay u soconaysaa mar walba maalin walba marka ma gabdhaha la caayay iyo mike baynu isu daba fadhinaynaa gabdhuhu waa gabdh cidday daaweyn inaynu nahay club house-ke bayaan ha laga soo saaro khadkuna inay iga googoy doonaan u malaynaya waxa weeye marka bayaankaa caawa aynu ku kala kacno wixii dambe dib ka soo cusboodaanana maaragtay ha lagu qaado qodobkaas maaragtay ha lala tigsado laakiin maalin walba soo bilow haddana meeshii kas ku noqo waxa weeye waa de in adeero waxa weeye waa ijiid maaragtaa jiide هذا نكى أضيع أنت خد كحية كعليه وسكسوغا أوكي أنا أرمتشو تاو بس على سيدو كاعنا ياي ملك حن بعد برا خد كايقع عنا بيا هذا ولا مقلاي أنا waxaan ku soo gabagabeynayaa arrintaas haddaan bayaan laga soo saarin waxa weeye anigu waxaan qabaa inay saa u soo noqonayso dameero isku halayn bay hooyadeed dabada uga nuugtaa baa la yidhi ninka wax caynaya cid buu isku halaynayaa mar walba labada dhinacba hadday doonayaan qof walba oo Soomaali ah oo meesha jooga qofka wax caynaya dad baa u shacabaynaya dad buu isku halaynayaa he knows maanta hadduu maanta uu qasto oo gloves xidho inay maanta haddana intii la soo imaado haddana meesha ay ka bilaabanaysa ama dad kale oo behind the scene abu ku xisaabtamaya oo gloveski iyo la xidhanaya baalki arrimahan haddaan qodob laga soo saarin hebelow sidaan bay usoo noqonaysaa qodobkaas ani waa muhiim baan isleeyahay niman yahow dadka qaar ba waxay ku dhahayaan sidii maantaba laga dhawaajinayay ninkaasu taleefankiisu ka soo gelaya isagaa afkiisa leh waxaasu aanu ma aaminsanahay anu waxaan aaminsanahay haddaynu ugu talagalnay inaynu xakamayno we can do that waan xakamayn karnaa meeshaasaan ku damin karnaa waxaa la yidhi problemka sidiisuba intuusan ku soo gaadhin meesha haddaadan ku dilin waa ku dilayaa waxaa weeye dhibaatooyinkana haysta waxaa weeye wixiibaa intayna soo galaan daadkii oo wata qoryo iyo qashin wata intuu kolbana soo galo yaynu leenahay dabka ha la demiyo maxaa dabka la deminaya dabkan waxaa weeye qashinkii iyo biyihii wasakhaysnaa baa demiyeyba already waa dansan yahayba waa dead niman yahow go-aankaas maaragtay qutuusi maaragtay madaxyo weyntaasu majeerteen iyo ogaadeen ee maanta meeshaa fadhiya gugashana nimankaa ogaadeen baa maanta xaadhay oo raaligelintan bixinaya raaligelintaana abwaankiibaa maanta u qaaday anuu abwaanka kama daba hadlahayo waana ku raacsanahay in gabadh la caayana anuu mar walba raalli kama yihin raallina ahaadaan leeyahay gabdhaheenna majeerteena maanta la caayay gabdhaha walaalaheena iyagana ogaadeena maanta la caayay haddaad u malaynaysaan idinkana inayna raaligelintaa uun gabdha uun maaragtay kale in la raaligelinayaba walaalla waxaad ogaataan nimankaa majeerteenna waa joogaan siduu hanad sheegay hidda iyagu waxa weeye ninka raaligelinta dalbanaya ee raaligelinta anugu haddaan maanta leeyahay gabdhaha maaragtay khaladka lagu sameeyey majeerteen oo walaalow raalli ahaada waanu ka xunnaaye hanad miyay dhibaysaa arrintaas ama qof kale miyay dhibaysaa ma dhibayso arrintaa hadday dhibtana hanad bay ceeb ku noqonaysaa aniguna waan idin raalli gelinayaa iyaguna waa idin raalli gelinayaan labada dhinac marka
marka walaalayaal waxaad ogaataan anigu waxaan isleeyahay muhiimadda ugu weyn inay arrintan inaan qodob ka soo saarno wax walbaba waa beginning waxbaa lagu bilaabaa bilowgii caawa inaynu u noqono arrintan si ayna maaragtay arrintan hadda kadib ay u noqoto in la damiyo iyo meesheeda in lagu dilo durbaba haddii kale maalin walba saasay isu dhex yaacaysaa waan idinka baxa waan islaamaya okay madusha ugu socda Said okay daraawish xasan darwiish xasan ku socda wararta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa waxaan u malayn waxaan way soo laalaabteen wayna soo laalaaban doonaan wuxuu yidhi ey duurgali tima gufi way ka go'ayaane dabeecadduse kama guurtiyo goonjabku qabeen ragga gabdhaha caaya ee caadada ka dhigtay horta way cayn doonaan haddii aanan laga soo saarin xeer lagu ciqaabayo soomaalidu waxay lahaan jirta wax la guddi dhaqan xeer beegto iyo guurti bay lahaan jirtay intii dawladda iyo waxaan systemka iyo constitutionka aan la samaynin wuxuu yidhi guddi dhaqan leh guurti iyo goliya xeer beegti gablan uma horseedaan daday gacal u sheegtaan dadka horjoogayaasha qabiil walba horjoogayaal buu leeyahay kalaabha isku matala dadkaas ayaga waxaan u soo jeedin lahaa gabdho la caayo ninka dhiira geliya ama durbaanka u tuma ama u maleeya raganimadu inay ku jirto hadda waxaad arkaysaa markii xal loo fadhiyo kuwa durbaana garaacayo iska dhigaya nin ragaatee ii sheegay yaana hadal jilicsan lagaa dareemin raganimo moodin waxaan dhihi lahaa dadka noocaasa xishoodka horta wuu tegay nin la dhihi jira Abu Tamaam oo gabyaa waddanka Suuriya u dhashay yaa wuxuu yidhi falaa wallaahi maa fi lcayshi khayr wala dunyaa idaa dahaba alxayaa ilaahay baan ku dhaartay noloshu inayna khayr lahayn hadduu xishood ku tago meeshan xishoodkii baa tegey dad bilaa akhlaaqa yaa isugu imaaday maanta markii la xaliyay berrina way taagan tahay waxaan soo jeedin lahaa dadka dhibkan wada in intii qolol gaara loo soo furo lala fadhiisto wax loo sheego loo caqli celiyo hadalkay waxaan kusoo gabagabeynayaa gabdhihii xalay la haayay raaligelin buuxda gabdhihii majeerteena xalay la haayay raaligelin buuxdaan siinaynaa raalli ahaada meeshaan annaga haddaan qurba joog stress free baan usoo galaa runtaan idiin sheegaynaa haddaad aragto mid qabiil caynaya haddaad aragto mid taraag wada waa meesha stress free baa loo soo galaa in lagu sheekaysto la isaga qaraaxaysto lagu qoslo ruux walba farxad buu raadinaya annaga dad waxaan nahay soomaalidu ii sheegay oral society oo sheekayso oo sheekadii iyo waxan ay ugu baxdo adhisabaan deganaan jiray anoo yar waxaan xusuustaa 3 qoys baan ku deganayn annagoo Soomaali galbeed ka soo guuray qoys Hargeysa ka soo guuray iyo qoys Muqdisho ka soo guuray annagoo is aqoonin meeshaas ugu imaanay sijaayad baa banaanka la dhigani laaduu baa la ciyaari waa la qosli amxaaraduna dhaqan waxay leedahay markay qorraxdu dhacdo inay guryaha ku xaroodaan xataa saxarada musqusha lama aadayaan tuunji carruurtu ay isticmaashaan intay isticmaalaan bay suuqii soo daadiyaan ma aqaano waa dhaqan ay leeyihiin oo banaanka inaan la aadin annaguna intaan xilliga habeenka markay noqoto taas jaayad banaanka dhigan markaas waxay dhihi jiraan Soomaali waranya Soomaali war badan marka qurbihii markaa imaanay meel cidla aan imaanay oo aynan ii sheegay haddadaad la sheekaysatay iyo dadaad la farxday iyo oo geri go'an marka farxaddaas yarta ee meesha laga raadinayo dad bayba dhibaysaa oo dadkaa wada qoslaya wada sheekaysanaya faraxsan dad bay dhibaysaa waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga dadkan ayaga haddaan tallaabo sharciga laga qaadin oo ii sheegay aan go'aan midaysan laga gaadhin ayadan way sii soconaysaa
maalin kastana waxaan u taagnaanaynaa inaan raaligelin iyo gabdhaan la caayay marka gabdhihii xalay meesha lagu caayay raalli ahaada sharaf baad leedihiin karaamaad leedihiin gabdhuhu qiimay kale aan jiraan soomaalida dhexdeeda wuxuu yidhi kun wiil oo la jara qoorta iyo kuman qof oon waayo qoontii yar ee gabadh ku taal iyaga qaraweyn gabdhihii heerkaas joogay maanta dee waxayba iska noqotayba caydoodu wax iska bannaan bay noqotay hadalkayga intaasaan ku soo gebagabeynayaa ana mahadsantiin okay awan ها okay saab waayahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ilaahay khayr ha siiyo darwiishka wax fiican buu inoo sheegay oo wax lagu qaadan karo walaalayaalow inaguna saaka ujeedada aan isugu nimidnay meeshan kaleenahay waa intaasu si guud ahaaneed gabdhuhu waa gabdhaheennii qofka xitaa wax caynayo wax uu ka qoomamayn doono oo ka daba iman doono ayaa jirta maxaa yeelay qof waliba weynayn karaamayn iyo sharaf ayuu u baahan yahay gabdhuhu sidoodaba waa ceebka saliim ragga isku dayaya ina ay gabadha ay ka fiican tahay bartilmaameedsadaan ama waxa weeyaan mataqaanaa ay aflagaadeeyaan waa iyaga oo ka hadhay bay taasi la mid tahay gabdhihii fiicnaa oo berri ka maalin ay hortooda ka xujaysan macnaha qofku hadduu gabdhihii fiicnaa wada caayo dee meesha u socdo waynu garanaynaa sidaas darteed gabdhaha fiican iyo dhammaan gabadh walba way inoo fiican tahay marka la caayo inteenna aan caayin inaynu ka tallaabo qaadno oo aynaan qabiil u eegin oo aynaan maaragtay aynaan cidna ku xumaynin oo aynaan xujo moodin haddaanu anagu hor raalli gelinno dad jilicsan baanu nahay waxaa weeyaan waxaas raganimo walaalayaalow ma aha waa inaan kala hororsanaa raaligelinta gabdhaha laba qabiilo haddii qof uu qabiilo ku xadgudbo ha isdhihin kuwaagaa la hor caayiya kuwana kan ah waa inaad sharafta u aragtaa inaadan adigu ku dayda aadan noqonin oo adigu aadan noqonin waxaa weeyaan mataqaanaa mid ku baraarugo uun marka laga wanaagsanaado oo aan dhibcaha lagaa hor urursanin arrintaas horta ogaada maxaa yeelay laba arrimood baa loo tartami karaa xumaanta iyo gudnimada iyo qurunka iyo waxa weeyaan qarannimada iyo waxa weeyaan mataqaanaa iyo gobonnimada iyo waxa weeyaan quruxda intaas baa loo tartami karaa marka tartankii in lagaaga horeeyo inaad qurux aad moodo waa caqli gaabni weeyaan annagaa meeshan furnay si sharci ahbana welibana haddii loo eegana niman yahow dad waxaa jira laga yaabo in warxumatashiil u warramay ama looga dhigayo in annagu gabdhahayagii iyagoo dhammaantood gabdhaheennii ah gabdhihii ogaadeenka inaanu maaragtay aanaan dhibsanaynin ciddii cayday sidaas ma ahan wax waliba sabab bay leeyihiin sababtii baanu eegnay sababtana annagaa ku horumarnay haddaan ku soo celinaynaa annagaa ku horumarnay haddana sababta wanaagga ina aan ku horumarno oona looga badinin way awoodaan nimanka walaalaheena ma jeerteen annagoo sababtii lahayn inay nooga horumaraan laakiin haddii ilaahay solansiin waayey waa inaan iyadoo dariiqa annagu aanu uga horumarno sidii tii kaleba aan uga horumarnay sidaas darteed walaalayaalo waan idinka horumarnay gabdhaha la caayay marka waa markii saddexaad baan ku soo celinaynaa mid iyo waxa weeyaan iyo si guud ahaaneedba raaligelin baan u siinaynaa magaca ogaadeen oo dhan aniga oo ku hadlaya 5 gabdhood baa gaar loo bartilmaamsaday waa gabadhaas waxa weeyaan abtiga aan u nahay oo iyadu hooyadeed iyo aabaheedba waxa weeyaan ay u siman yihiin waa qurux qaali waa tigtag waa boqorada waa sundis iyo gabadha hadda familkayga baa ah dubaashadeeda ee waxa weeyaan nimca jookara shantaaba waxaan leenahay walaalayaal 100% waa la idin gafay waa la idinku qaldamay ceeba iyo dhaliila aydaan lahayn baa halkaa lagaga hadlay wax aydaan lahaynna idinma fuuli karo wixii la idin caayina waxa idinka wanaagsan inaanu anagu sharaftiina aanu sheegayno oo gabdhaha ugu qaalisan ugu sharafta badan tihiin raalina ka ahaada nagana qaata arrintaas iyada intaas ka bacdigeed hawsheenu hadda way bilaabanaysaa waxaan siinayaa hanad ku soo dhawow ama santahay udusha waxaan maleeyaa fayaan baan hanbaad ii siisay ragala joogaan maleynaya fayaan han baan kuu siiyey naadir oo iga mudan may maqlaysaa si fiican maxamed deeq kolay diga
دايتنا بقى نقي بني ماشي أنا شو اللي بعصمه محمد يا خشوا هاي نادر وجهه محمد يقرأ لنا عنده ولا كلام مذيع هي هذا الكف دي سيد هدي سيد دمنا مركز سيدا أنا سيدا may naadir waa idin salaamay dhammaan madasha qof walba salaanta meeshu ka leeyahay ha ka qaato inta haddaan ka gudubno oo soo gudubno arrinta meesha taalla ilmaada rayaal waa mahadsantihiin gobashaan aad dhigteenna waa soo ajiibnay waxa laga talinayaa ama laga hadlayana waa maslaxad guud iyo wanaag dabcan damage baa dhacay waxa gobonnimada ku xun baa dhacay dadkana kama marna dad caqli u saaxiiba oo wax garanaya markay wax khaldamaan sixi kale dee rag hadduu isu yimaado oo xaajada dhanka wanaagsan laga wada eegayo daacad laga yahay de wax way hagaagaan haddii munaafaqad iyo iska daba wareeg iyo aysan dadka qaybtood dhab ka ahayn dee heerkan hadda aynu soo gaarnay maba soo gaarteenba magan qurunka iyo qashinka layska walaaqan lahaa mayo marka xaajadu si aysan u sii baahday dee qof walba muxuu ah mayga la hordhigo wixii waa iska baahaysaa waqtigiina waa inugu dheeraanayaa dad kooban mayga ha la hordhigo ka bacdina arrintu si ay noogu soo gabagabowdo shaydaankana la iska naaro makhaldama waa ilaahay bini aadamku dee khalad waa ka dhacaa caanadaata dabadood baa la qabtaa wixii yani in wax la iska yidhaahdo niyaho sidee uga gaashaabanaa hadda damage baa dhacay ta soo socota dabcan horta meeshu badanaa eragaasaa lasoo qaatay waa club house isbarbaryaacu aad buu u badan yahay ismaqlaanto sometimes adiga oo qol baad soo gelaysaa waxa ka socda raalli kama tihid waxaad jeclaysanaysaa inaad kelmad ka dhahdo hoos baad joogtaa laguma soo qaadayo ma garan dantu marka dambe waxay kugu kalifaysaa inaad isaga dhacdo nimayow marka hadda kole hadaayana dee meel kalen uga soo hadalnay hadda waa second roundkii weeye waataynu ku ballannay anu waxaa qabaa dhanka haddaan majarteen u hadlo ragga ilmaada rayaal waanu aqbalnay waanu guddoonnay muxuu ahaa raaligelintii gobina waa tii dee raaligelini haddii waxa weeye dhanka kale wax ka dhexeeyaan ay muxuu ahaa raaligelin soo gudbo gobi waa tii qaadata dabcan arrinta bilowgeedii dhankiinay ka timid yani xasaraddu waxa ay ka bilaabatay abwaankuna haddaayo waa ka hadlay madashii hore ka bacdi bahashii tusbax furtay bay noqotay dhankayaga dad ayaguna dee dhooqaystay waa jiraan gabdhaha ogaadeenna ayagana waa gabdhaha iyagii gabadha ogaadeen iyo gabadha majaarteen waa isuukaaya mid ayagana xaal golo joogsiya baanu siinaynaa waanunu ka raaligelinaynaa sicyaacdii iyo muxuu ahaa xanaftii soo gaartay waa isku mid waa in labada dhinacba ay u wajahaan gabdhaha isku sid gabdhaha iyaga majaarteen ilmaadeerayaal walaalaheen raaligelin bay arrintii ka bixiyeen iyo cudurdaar ciddii falkaa ku kacdayna waxay dhaheen tallaabaan ka qaadaynaa oo kama harayno geed gaaban iyo geed dheerba waa u koraynaa marka nala aqbala arrintaas aan idiin soo qaadnay reer mudug waxay dhahaan xalay dhalay dee naf go'day baa muxuu ahaa rag ka tagaa alaaba muxuu caydu waa iska caliyo marka arrintaa nala qaata guul iyo gobonnimo nimayo arrintan ayaan la baahin horey ha looga socdo haddii futureka anigu waa qaba khaladaad waa soo noqnoqonaya darwiish wuxuu yidhi waa in sharci iyo laga soo saaro I wish sharci la isku ganaaxo oo banishment dadka lagu samaynayo lagu ciqaabayo haddii la samayn lahaa nio waa iska waano muxuu ahaa hadal wanaagsan oo la isdhaho dee inta caqliga u saaxiibka way qaadanaysaa marka anu waxaa qabaa haddii fulkaanadan oo kale ay qaraxdo ama dhibaatadan ay dib u soo noqoto sidaynu hadda ugu guntanay inaynu af qabanno baa la rabaa inaynu heegan u ahaano nin walba wuxuu qaban karo nimayow raggu dee maygu waa u furan yahay waa kuftami karaan waa qofkaas muudgal
way isqardoofi karaan way isqallici karaan waa kala tegayaan laakiin sannimayahu gabdhaha laga fogaado mar walbana anigu sidaa waa dhaha gabdhuhu waa sharafteenni wey waa sharafteenni huwanayn nin walbow gabdhaha ka laandheeray hadday ku maagto ku caydo horey u soco waa walaashaa wey waxaa laga yaabaa inay emotional iska noqotay ay ku dhibsatay dulqaad waa inaan u yeelato marka annaguna waxaan ku dadaalaynaa dhankayaga qolyaha la tuumaya ama duulduul ka dhacay waa la hadlaynaa nima waxaan leenahay arrintaas nagama kii qabato idinkana sidoo kale sidaa ad sheegteen marka ilmaada rayaal cafi iyo musaamax waan leeyahay waana aqbalnay waana guddoonnay calaa kulli xaal hadalka muxuuha gabagabadiisa intaasaan dhahayaa kuna soo dhawaada walaalayaal ما شاء الله بقر الله كشرفه هذا طيب هدول لي وحمله وعندنا تري كذا ماشي شوكت على كل إلهي إن أنو قادنا أو إلهي كوي وكدوه سماها نقطة من مشرتنا وكلا ربا إنه قاتل بشرة أريك يرى أما الله ما ليس أنا الربع أبو العرب عدي عرب عدنا يا ها نيك لوايو كمان شفته وقرنتها ترينا ما هذا أما وأنا عرب عد كويس أوكي أي عرب عد قاضينا بسم الله الرحمن الرحيم ورت وان سلام يا دمانتين أنا خيارته ماشي سويت تمد الوضع اللي نعبة وتنتين يقعدين اسمه هذا الكلام أن يورت واحد اللي يري ولا الكا أن دي عند أستاذ وقارك عند هذا وقارك اللي يشتري أن تكون وحويه ده ولا شو حد جود بيا حد جود يقول كده رفع اللي يشتري وحوي بماهن arrintu waxa weeye mar haddii la yiraahdo nimayo arrintaas anagoo tal ah baan ka fariisanay raaligelinna waa ka bixinaynaa labada dhinacna dee hadda dhinacan kalena waxaan u malaynayaa qolyo oo hadallayii anugu dee gabdho xanaaqay oo qolol soo furtay oo dee ayaga qayb la caayayay dee waa arkay laakiin rag hadda inta qolol soo furtay kor saartay oo wax badan u saaraa dee ma arkin dee haddii la yidhi raaligelin baanu ka bixinaynaa arrintii dee raaligelinta waanu qaadanay annaguna wixii dhinacayga nala ka tabanayey dee raaligelin baanu ka bixinaynaa dadkuna waa tal had iyo jeerna dantu waxay ku jirtaa labada qof oo isqabsata ama labada qof oo ama qofka waxun wadaha ah labada dhinac midna dani uguma jirto walow dee ay ku habboon tahay oo had iyo jeer ay ku fiicnayd dambiilayaashii in la yidhaahdo hadla oo raaligelinta bixiya adinkoo afkayga ku hadlayo oo soo qabsado laakiin weli lama helin baan u malaynahayaa tolkii baa yidhi annagaa ku maqanoo nabsanaynaan u gartay innagaa mas-uulka ah baa u garanay odayaashii baa u hadlaya oo ayagii weli lama soo gula fariisin baa u gartay waa sax iyada laftigeedu wax wanaagsan marka waxaan odhan lahaa labada dhinacba in la isxakameeyo ciddii wax tirsanaysa ciddii wax laga tirsanayo ciddii wax khaldan ku hadashay ka waantoodo arrintana halkaa inoo ku dhammeeya raaligelintana waa qaadanay dhinaca iyaga wixii wax laga tabanayana waa bixinay arrintaasna waxaad moodaa dee dhinac bay aada uga soo noqnoqotaa ilmaada rayaal oo arrintaas sidii dib looga xakamayn lahaa qolo waliba ha ka tushato oo qolo waliba go-aan ha ka yeelato sababta wux hadday soo noqnoqdaan marka dambe waxaa laga yaabaa in laysku fahmi waayo oo si kale ay u muuqato ma fiicna xumaantu inay soo noqnoqoto ma fiicna aad iyo aad baan nii salaamayaa dhinaca iyaga qofkii wax tirsanaya ama gabdhaha wax tirsanaya ilmaada reyaalow raalli ahaada dad baa hadalle ina yidhi ina ahayn wixiina ahayn ina ku sheegay iyo dhinaca kaleba kullii qof gabar caayay dee qof hadda halkaa ku jira dee intaa sawirkiisa facekiisa ka qaad haddaad soo saaratid oo caayay micno ma samaynayso raganimadaada wax u dhimaysaa marka waxaa odhan lahaa adinkuna ilmaada reyaalow qaata halkaa uga gudba
waxaa la yidhi meeshaad nin ka qaadatay nin baa uga tagtaa meeshaad nin uga tagtay nin baa ka qaadataa miyay ahayd dee dadka inta fiican baa badan intii fiicnayd hadday garatay alle ahaada wixii xunna saan u qaban lahayn annagaa qabanayna hadday garteen dee halkaasayba ku eg tahayba wax dadboo laysku raacdo wax ma jirtaan u malaynaya ee wax lasii wado cid walboo xanaaqsanaydna waxaan leeyahay isdejiya shaydaanku yanu ka qaalib noqon waaba xadiisba ninkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam u yimid oo yiri ii dardaaran haddii wixii laa taqdab mid kale igu dar buyi laa taqdab mid kale igu dar laa taqdab ha caroon carada iska ilaaliya carada iska ilaaliya meeshu waa laisku gafaa taladaadku waa iska jiraan meeshu waa club house wixii la doonaa lagu dhahayaa meeshii la doonaa lagaa raacayaa adoo diin akrinaya xitaa waxaa la moodayaa inaad diinta u akrinaysid qof inaad dartiis aad ku xumaysid waa wax iska dhaca marka waxaan leeyahay raalli ahaada labada dhinacba beeshay ogaadeen gabdhahooda iyo beesha mateerteen gabdhahooda waa ilmaada real raalli ahaada nagu qaata intii halkaa wanaagga isku raacda waana salaamaya waa mahadsantahay ما شاء الله الله يكسر بقر كيمياء وحقا من عندنا ناس boqol abnaas in adeer waa mahadsantihiin 2 daqiiqo kaliya aan qaadanaya waxaan filayaa waxa la yiri anaa haray looma hadlo oran maayo wixii walaalahay ka hadleen xanad iyo odayaashii ugu horreeyay sida abaan haram cadi axmed deeqi iyo inta aan soo gaarin salaad baan aaday waa sida ay u yiraahdeen raaligelinta buuxda oo aad bixiseen waanu qaadanay anana kuwii shabeeyraasay waxa lagu hadalka waa dhamaaday waxa la odaygii yaasir carafaad ahaaba iyadoo shir la galay carbeed ayuu isagoo xaraaqsan soo baxay baa markaas wariyaasha carbeed waxay dhaheen maada ittafaqat alcarab carabi maxay ku heshiisay baa la weydiiyey markaas yiri alxamdulillah ittafaqu way heshiiyeen bi ilaahay ma hadle maada bal maxay ku heshiiyeen bimaada markaas wuxuu yiri baa ittafaqu an la tattafaqu abadan waxay ku heshiiyeen inay weligood ba heshiinba dib u heshiin laakiin inagu waxaan rajaynayaa waan heshiinay oo raaligelintaas waan qaadanay inaan soo noqon oo ninka qaladkaa soo celiya qalad marjuucaas in la tacsiiro yani in sanction la saaro waad garanaysaan wadamada kibra cuna qabateen baa la saaraa dhaqaalahooda salka kala gab haddii annaga dhinaca ayaga uu ka yimaado waxaanu isku dayaynaa inaanu sanction saarno oo maxay tahay simple waxaanu samaynaynaa nin kastoo naga mid ninka inuu block saaro meel aanu ku jirraba yuu soo gelin marka la go'doomiyo isagoo ba'ayuu hoogay lagu soo laabanayaan of course waxaynan isticmaalin leverage-ka layna siiyey awoodda oo ah sanction in la saaro cuna qabateen baanu saarnay anigu anaan ka bilaabay nafteeda nin allaale haddaan gefo keliya waxay samaysaan blog isaaran hada iga qaadina ilaa aan idin idhaahdo meel raali gelinayo maanayo waka madaxaan dhiibanaya afkan maaragta kaba ku soo qaadaya ilaa aan idhaahdo yaan la iga yeel waayo untouchable issue baan shanta la galay off limit baan sameeyey waxa la mamnuucay baan galay saa igu sameeya anigana iga bilaab waayo waxaan ugu dambayn oranayaa hablaha sharafta badan ee ogaadeen si lamida sidaas aad idinku raaligelinta u bixiseen dabcan qalad baa dhacay anaga xalay marka dhinacina qaladku ka dhacay oo nin dhalinyaro ee wax qaribay lana buunbuuniyey fidnadu waad aragteen daba la qabtay leedahay baa layidhi daaman la qabto male duurkay xushay waxa weeye walaalayaalow qaladkii markuu dhacay xagga iyagiina way soo gaartay bahashii way fiday intii aad geysteen in ka daran miyaa waxyaabo aad u foolxun baa dhacay xagga iyaguna ma badbaadin waxaanu leenahay intaa in lamida baanu keenaynaa waa maqlaysan raaligelin baa la bixiyay laakiin mar labaad baanu soo noqonaynaa annagoo raaligelintii wadna odayaashaana dee iga waaweyn oo sida axmed iyo abwaanka iyo haram cadiye baa jooga marka insha allah si lamida sidaas baan anaguna yeeli doonaa waayo annagii baaba ceebaysan maxaa idinku haddaad isgarateen annagiina aanu iska dhigna ceebka saliim maa fi ceebka saliim yaqi waanu idinka darnay xaar baanu dhex fadhiisanay marka raaligelin la mid ah ayaanu bixin doonaa gabdhahaas la mida gabdhahayaga ee sharafta le ee ogaadaan si la mida baanu raaligelin u sii siinaynaa hordhac walaalahayna way sheegeen iyada oo rasmiyana waanu soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala
imaamadaana in laka aqbalo waan rajaynayaa oo aan la ku diidin qodobka ugu dambeeya aan oranaya waxa weeye aan filayo inay wax weyn runtii naga tarayso walaalayaal horta ilaahay aan ka cabsano waayo berri baa laga tegay hadda masaajidka waxa lagu tukanayay magaaladan Seattle Washington nin odaya lagu tukanay xalay dhintay oo masaajidka lagu tukan jiray aad u qiimo badnaa waana macsalaameyn iska qorshe jiray banaanka markasta wassalaamu calaykum dib u oran maayo u dhaqaajay marka horta in ilaahay laga cabsado oo cirdiga gabadha sharafteeda la ceebayna la caayayo in laga fogaado maanta waa la xalaalaystay qodobka ugu dambeeya aan oranayo waxa weeye marka qodobka isaga ah ninkan ceebta sameeyay horta haddaan loo tagana keligiis buu noqon lahaa kullu fidna cinda geel buu yidhi liibiyaankii meesha la yidhahdo beledweyne joogay talyaanigu ku yidhi war maxaa la isku hayaa magaalada wuxuu maqlay maalin kasta geel baa la dhacay geel baa la qaaday hal buu iga dhacay markaasuu yidhi liibiyaanku wax kale ma aqoon afcarabi kula hadla wuxuu yidhi kulli shay cinda geel dhibaatada dhan bu waxay ka timi geela buy war haddaynan u tegi lahayn ninkaa dhallinyarada ah laba qof hadday u tegi lahaayeen qolkaa dhibaatan ba yeesheen laakiin kun qof baa halmar ku yamoomay marka attention seeking qof ah oo xanuunsan haddaynu u tagno wixii heerkaasi nala gaaraysaa danaha iyagana waan ka mashquulaynaa ma garanaysaa dadkuna waa iska wada qabyaaladaysan yihiin leefadda qabyaaladaan la shidmaysa marka intaasaan odhanaa raallin ahada waan ku dheeraaday bahalka maaqa mayga marka la yidhibo malaha mayga igu cusub waan iskaga suuxaay igana raalli ahaada sidaas baan kaga baxay assalaamu calaykum allahna khayrkana waafajiya safkaa meel iga dara liibana yaal maasha allah waa kuma ya atoor weeyaan bal malaynaya atoor meel rabin gaar ka qaato atoor meel rabin ها أبت ميل يقدر وحوي اللي يرى يقول أوكي ما أنا هذا الكبه هنا مرة الجيل بالبحين يوان لقاطب وانا وحي معناها يقول تقول رجاسي جوجوش دقي إن وحي نوصو معناها أفر نبي كوها اللي برمنا لي مركزي ده أنا معنا قدرسه تلقى أفراد نقو ويقدم بين الحويد مع السلامة نولي وهولي ساكون مشغولة إلى حد ينفذيه إحنا ما لا ماشي وهم الجيلين قبل حق روح بدنا المادة هذا أنا نوع والبول الكاتشوج أو اللوج في الرجو وقفين وانت اللي قلت هذا بحيان وياه معك مرة قاضي إن أتور أبيض لاندير دلي ويه ونما يورتا إن meeshan club house baa la yiraahdaa waxa weeye qof yaqaano oo soo galaana waa dhif yaqaan labadii istaqaana waa labo waxa weeye saaxiib oo aan waxba iska sheegin dadka caadiga isu yaqaano CV-ga iska haya waa dad saaxiiba oo caadiya oo isku fiican isku wanaagsan waxna iskama sheegaan waxyaabaha meelaha laga sheego taariikhdan beenta dadka la soo dul saaro oo dadka lagu soo dhajiyo aan waxba ka jirin ilmaada reyaalow in maanta hadda raaligelin laga bixiyo wixii la sheegayay ama shanta gabdhoodba wixii lagu sheegay inaysan bunna ka jirin anaa markhaati ka ah idinkaa markhaati ka ah kii ka sheegaya laftirkiisa haddii la weydiiyaa markhaati ka ah marka waxaan waxba ka jirin raaligelin muhiim ma ahana keliya waxaa muhiim inaad yaro qowdood maqashi waxna u qaban aan nooga dhiginina problemka ugu weyn wuxuu yahay meeshan inaad yaro gacliyo oo taagan in ninkii shalay toole sidaas u hadlayey in meeqaamkii uu shalay taagnaa in aanu aragno isagoo ka hooseeya dadka dhexdiisa dhulbahantaa ku yimaado nin waxa weeye dhalinyarada dumarka caayaa jira meeshuu ka taagan yahay maanta waa isla garanaynaa ma jeerteen dhowr qof baa jira meeshay ka taagan yihin waa isla garanaynaa ogaadeenkoodu waa abwaanduule hebel baa la dhahaa abwaan hebel baa la yidhahdaa inaad yarow marka qowda maqashii waxbaa u qabanaya nolol kaga dhigin ilmaada reyaalow aanu ka aragno adinka dhexdiinna aanu ka aragno ninkii oo loo wada jeedo oo adinka dhexdiinnii waxa weeye laga dareemayo inuu qofkaani khalad weyn galay ma ahan hadda maanta muhiim ah in hiblaayo raalli ah ma ahanba wax laga sheekeynayo dhan ma ahanbe hadda raalligelinaas isaan baa khalad u arkaan gabdhaha sababtoo ah qurux baan ahayn waxaan ahay sundus baan ahayn qofta la yidhaahdo qofta la think tag baan ahayn waxa laga sheekeynayo dhan waa huuhaa taariikh beenaa dadka la iska dhajiya anigagaan idinla hadlaya waa 150 qof oo aanan weligay arag meel ay ka yimaadeen baa wax ugu sawirayay haanad baa lagu sawirayay maduushaa baa lagu sawirayay marka inaad argacday waxaan waa isla ognahay keliya muhiimaddu waxay tahay yaysan soo laaban muhiimba ma ahan way soo laabanaysaa hadduu kii shalay gabdhaha caayay anigana boqor ii yahay weli adigana abwaan kuu yahay way soo laabanaysaa maxaa dhacay haddii lala kaftamayo oo kaftankii uu usii furan yahay oo lala sheekaysanayo oo weli laleeyahay laandheere abbaanduule bababa dee inaad argacaliyo safka waa lasoo wadagelayaa kii shalay boos uu ka soo gala kaftan kale ah baa dumar kusoo ruqaansanaya oo dhahaya waa waray anna abbaanduulaha laga dhiga abbaanduula dhalay maalinka la ii baahan yahan haye waa isamata bixinaya inaad yaro arrinkaasaan rabay inaan ku daro raalliha la iga hado mar raba inaan aad ugu dheeraado raggii iga horreeyey inta ay yidhaahdeen baanan ku raacsanahay keliya qodobkaasoo ay ilaaweyn baan saluugay inaad yaro meeshaas looga kaco isaga laftirkiisa wax haddii aan laga qabanna way sii soconaysaa anaa idiin sheegaya maaryaal wana mahadsantiin dhammaantiin ما شاء الله ما شاء الله أنا سو أرورنا يا وحير بعد شو المرة توبا وشغلنا دعلي صد ماذا ما شاء الله ما شاء الله إن وحنا مرنا يا هو
intii la oran lahaa waa la yidhi awarfaayow suldaan aan soo kasoo dhammaano waa sax intaas keliya horta intii la oran lahaa waa la yidhi tolnimada iyo wanaaguna wuxuu ku jiraa waa intaas nimayahow anigu mid baan oranayaa marka kaleeto horta muxuu ahaa gabadha waxaa ku jirtay nimanbaa talkood wahab ku rara maxay ahaa waalidkana caayo noocaas horta waxaa hadda meeshaan la isugu yimid oo intaan oo nina ay u fadhido ilma adeerayaal rag qaaya leh oo qayma leh oo wanaaga garanaya oo hooyo macaanka ay leedahay iyo sharafta ay leedahay iyo dumarkeenu sharafta ay leeyihiin garanaya meeshaa wada fadhiya maxay u fadhiyaan oo xalinayaan hadda enerjiga kaga dhammaado waqtigooda iyo shaqadooda uga hareen waa wax nin aan garanaynin hooyadu iyo gabadhu iyo walaashiis iyo aanu oran karno qiimaha ay leeyihiin aan garan karin baa waxaa sameeyaa la oran karaa dhan walbana waa joogaa aan naga mid ah oo kalaaba hawska aanu ragayga joogaan ilma adeerayaal marka way soo noqonaysaa horta lagu celcelinayo ha laga daayo ma soo noqon kartaa maxay soo noqonaysaa qofka waxaa sameeya ninka walaalkiisa ugu sokeeya ha qabto inay soo noqoto ma aha waxaanu ka wada hadlaynaa inay soo noqon weel markaa waa in qofka uu dareemaa haddii kuwii ma jeerteen iyo kuwii ogaadeen iyo kuwii cid walbaba ahaa ee waxaan qaladka ah sameeyey lagu isaaro oo tilaabo cad laga qaado talku meel uga soo wada jeesto ina adeerga caliya waxay ku soo gabagaboobaysaa muddo yar xaqiiq marka laga hadlayo sidaa hadda u yidhi atoor haddaa idhaahdo garaadkii baa dhinacayaga soo fadhiis ugaas ii kaalay boqor ii kaalay gabarna uu ku ruqaansanayay xushmad u samayn waayey ina adeer macaana way sii soconaysaa laakiin hadduu takooraado oo sharafta laga qaado oo markuu kusoo nacfas iga kac nacallaa waalidiintii awowgaaya aabahaaba orqol soo furay igu socay aniga iga tag meesha ninkii weliba yidhaahdo ina adeer qofkii ceeb iyo foolxumo buu u arkayaa yaxyax buu dareemayaa kow midda labaad ilma adeeraya oo kaleeto meeshan taallaa waxay tahay ragga hadda in adeer horta waxa weeye saas haddii la sameeyo oo qofkii go'aankaas iyo mustaqbalkiisa waxaan leeyahay mujtamaca u dhex joogay ay noocaa go'aan uga gaaraan ma soo noqonaysaa go'aanka talka bay ka furantaa nin aan la qaban karin inuu is jirin waanu isku raacnay caawin nin walba oo naga mid ah waa la xakamayn karaa meel baana lagu xiri karaa waana la iska go'doomin karaa ragga oo dhan baa isku raacay taas in la xakamayn karo ilma adeeryaalow marka hadalku inuu sii baaho oo sii dheeraadana waxba darajo ah ku keeni mayo intii bointi iyo qurux u lahaa waxaan malinaya raggii inay ka soo hadleen abwaanada lahaa meeshaa fadhiyey dhinac walbaba ka bixinayeen haligelinta okay marka annaguna dee ninku wanaajiyey oo wanaag ku tusay oo ilma in adeer wixii dhacay taalli kama ahi yidina haddee oo malabku mariyey dee malabkii abaalkiisii nin gudi waayey inaad tahay nin aanu nahay u malayn mayo annaguna oo wanaaggiina loo tusay iyo dee waxqabashadii iyo ilma adeer dee wixii qalad oo dhacay annagaa maanta inta u taagan raallina kama ahin raggayna leh ayagoo abaalmarintooda naga mudan yihiin gabdhihii ogaadeen iyo kuwii maxaa la yidhahdaa ma jeerteen waa gabdhaha iyagii kulligood waxba nooma kala aha labaduba abaalmarin iyo raalligelin iyo ilma adeerayaal waxaasi waa dhaceene dee xaal iyo xumayn raggiinnii baan nahay oo sida ilaahay ka dhigaya noogu dulqaata xaq bay noogu leeyihiin dhan walba ay tahayba marka waxaan u malaynayaa in kulli taas lagu wada hadlay oo raggii iga horreeyay hadalkii soo dhameeyay hadalkan aan kusii dheeraada maaha in adeer ilma adeerayaal inta aadna xushmayseen oo aad gabdhihii shanta ahaa aad ka raalligeliseen in la eg baanu 100 milyan iyo 10,000 ee gabdhood ee clubhouse iyo social media isticmaalayo oo ogaadeenna aanu raalligelin iyo imaam maxaa la yidhahdaa garbasaar xadiida saarayna ma aanan garan waayin in kuwa loo gafayo oo idinku aad raalligelinaysaan iyo kuwa kaleeto labaduba ay gabdhaha iyaga yihiin ilaahay aydan sharfo dhammaantiinba anigu waxaan leeyahay marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum